tani waxay ahayd munaasabad xadhigga lagaga jarayay xarun caafimaad oo cusub oo laga furay degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa. xaruntani oo loogu magac daray Ogaal Medical Center waxayba furkeeda ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Marti Sharaf iyo musharaxiin u taagan doorashada golaha wakiilada Somaliland ee soo socda, dhakhaatiir iyo aqoon-yahan kale. iba furka munaasabadda tanina waxaa hadal ka soo jeediyay Dr. Ciise Suleymaan Bile oo ka mid ah asaasayaasha xaruntani, waxaanu si qoto dheer u sharaxay ujeedka ay uga dan lahaayeen inay xaruntani dhidibada u taagaan. xaruntan cusub ee aanu furayno oo runtii ah xarun caafimaad oo looga baahan yahay caasimadda iyo gaar ahaan xaafadda Maxamed Mooge ay xaruntu ku taalo. sababaha nagu dhaliyay runtii in xaruntan aanu asaasno waxaa ka mid ah waynu ognahay dalkeena Somaliland in runtii xagga caafimaadka aynu nahay wadamada uu caafimaadkooda aadka u hooseeyo, taasoo ay keentay muddo badan oo aynu priority-ga aynu ugu jireen arrimaha ammaanka iyo howlaha kale oo caafimaadku aanu hayn mudnaanta koowaad. taasina markaa ayna dhaxalsisay inaynu noqono wadamada ugu horeeya xagga adeega caafimaadka ee uu heerkeedu aad u hooseeyo. haddii ay tahay dhimashada hooyada iyo carruurta waxaanu nahay wadamada ugu horeeya. nambarada hadii jeer adduunyada laga sheego dadku nambar un bay maqlaan, laakiin innaga dee waa hablaheennii, waa dumarkeennii, carruurteennii, waa ehelkeennii, waa dadkeennii. waxay inooga baahan yihiin runtii adeeg caafimaad oo meel walba ku yaala oo meel walba laga heli karo. marka hawshaas oo jirta awgeed oo caafimaadkuna uu yahay mas-uuliyad cid walba saaran, hadday tahay dowlad iyo shicib iyo gaar ahaan dadka caafimaadka bartay, waxaa runtii noo muuqatay in aanu asaasno xarun bixisa adeeg caafimaad. adeeggaas ay ka faa'iidaystaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimadda Somaliland ee Hargeysa, gaar ahaan xaafadda ay xaruntu ku taalo ee Maxamed Mooge, oo runtii aan ugu bishaareynayno in xaruntu ay siin doonto adeegyo aad iyo aad tayadooduna ay u fiican tahay, shaqaalaha bixinayana ay yihiin shaqaalo tababarkeeda iyo xirfadeeda leh. xaruntan horta magaceeda waxaa la yidhahdaa Ogaal Medical Center. waxay ka kooban tahay qaybta farmasiga ama daawooyinka oo laga heli karo dhammaan daawooyinka aasaasiga ah ee aynu waddankeena ka isticmaalno oo dhammaystiran. waxay kaloo ka kooban tahay qaybta shaybaadhka oo iyadana dhammaan shaybaadhada uu u baahan yahay qofka bukaanka laga heli karo. runtii shaybaadh kasta oo uu cisbitaal sameeyo xaruntu way samaynaysaa. waxaa sii raaca kombiyuutarada lagu baadho dumarka iyo ku jirta oo iyaguna xarunta laga heli karo. xaruntu waxay ka kooban tahay qayb bukaan socodka lagu siinayo daaweyn iyo talabixin caafimaad iyo adeeg caafimaad oo dhammaystiran. sidoo kale waxay ka kooban tahay qayb bukaan jiifkana aan ugu talagalnay inaanu ku bilowno inaanu iyagana qaabilno oo aanu siino adeega bukaan jiifka ee ay u baahan yihiin. waxaa kaloo xarunta bixin doontaa daryeelka hooyada uurka leh iyo carruurta. hooyada uurka leh oo daryeelkeeda la siinayo ka kooban yahay daryeelka marka ay uurka leedahay, la socoshadeeda, daaweynteeda haddii ay computerka u baahan tahay, iyo marka ay umusho kabacdiba ay adeega ka helayso. sidoo kale xaruntu waxay bixin doontaa adeega caafimaadka carruurta oo isagana carruurta ay siin doonto adeeg caafimaad hadday noqoto la talin iyo daaweyn, intaba ay bixin doonto. waxaa kaloo xarunta laga heli doonaa oo ay bulshadu ka faa'iidaysan doonaan dhammaanba adeegyada caafimaad ee ay bixiyaan xarumaha caafimaadku, hadday noqoto xanuunada faafa iyo hadday noqoto xanuunada raagaba. labadaba xarunta runtii qayb weyn bay ka yihiin in ay bulshada ay ugu adeegto, ay adeegga usoo kordhiso. xanuunada coroniga ay ka mid yihiin macaanka iyo dhiigkarka oo iminka xanuunada aadka usoo badanaya. runtii xaruntu mas-uuliyad gaara bay iska saari doontaa haddii ilaahay ka dhigo bulshada ay u adeegto dabagalkooda, la socodkooda iyo daryeelkoodaba. inay kusoo dhaweyso shaqaale tababaran oo xirfadda iyo shaqada ay ugu adeegayaan ay yihiin shaqo runtii aad iyo aad loo hubiyey oo ay runtii bulshaduna aad ugu baahan tahay. waxaa ka howlgeli doona 4 dhakhtar oo mid ka mid ah uu yahay dhakhtarad ku takhatustay xanuunada haweenka iyo dhalmada. runtii iyadana aan aad uga mahadcelinayno inay xaruntan ay nooga howlgasho oo ay daryeel saayida ay siiso haweenka iyo dumarka kale uurka leh, dhammaantoodba ay ka heli karaan
adeeg maxay ahayd aad u tayo sarreeya oo ay bixinayso dhakhtarada takhasuska ah oo runtii dalka dibadiisa wax kusoo baratay waddankeediina kusoo noqotay iminkana xaruntan haddii ilaa keliga inooga hawlgeli doonta sidoo kale waxaa ka hawlgeli doonaa 4 dhakhtar oo 3 dhakhtar oo kale oo xanuunada guuda oo iyaguna shiftiyada kala duwan isu bedeli doona si maxay ahayd bulshada u hesho adeeg joogta oo mar walba ay xarunta ka helaan shaqaalaha kale noqoto shaybaarka iyo farmasiga iyo neerasta iyo umulisooyinka intuba xarunta runtii waa ugu diyaar Dr. Raisa Asma Ahmed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgalaya xaruntani ogaal waxa ay ballan qaaday inay ugu adeegi doonaan hooyooyinka iyo dadka kale ee bukaanka socodkaaba si hagar la'aan isla markaana ay siin doonaan talooyin la xidhiidha caafimaadkooda. waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka hore kaasoo inoo suuro geliyay maanta xafladan inaan ka soo wada qayb galno. labaad waxaan u mahad celinayaa marti sharafta halkan nagala soo qayb gashay ee waqtigooga qaaliga ah noo soo hurtay. waxaan ahay dhakhaatiirta ka hirgeli doonta Ogaal Medical Center. waxaan ahay dhakhtarad ku takhasustay daaweynta cudurrada dumarka iyo qaliinadooda. waxaanu insha Allah ta'ala ballan qaadi doonaa inaanu kaliya ta bixinin daryeel caafimaad oo kaliya ta aynu ogaal sida ogaal u tahay aanu aad u ogaan doono hooyada iyo dhalaanka iyo bukaanada oo dhan. intaasi kadibna waxaa mikrofoonka iska daba qaatay musharaxiinta kala ah Maxamed Yuusuf Ismaaciil, Cabdikariin Cismaan, Komishineer Mustafa Maxamed Caawil, Dr. Khalid Cali Balayax agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo Dr. Nuux Bootaan oo dhammaantoodba si isku mid ah u bogaadiyay furitaanka xaruntani. anigu kale waxaan baan ku hadlayaa afkii dadka ku dhaqan ama ku nool degmada Maxamed Mooge mihnad ahaan anigu laftigeygu kama dheeri caafimaadka waxaan ilaahay uga baryaynaa dhakhaatiirta furtay xaruntan caafimaad inuu ilaahay ka dhigo mid ay sii wadaan waxaan dareensanahay goobaha caafimaad furashadoodu inay tahay ganacsiyada ugu hawsha badan ugu kharashka badan hadhow toolana ay adag tahay sii wadisteedu waxaa jirta inta badan dhakhaatiirta iyo macallimiinta iyo ciidanku midna mihnadu ku jiro uma jiro inuu manfac ka sameeyo intooda badan waxay u wadaan inay dadka caawiyaan waxna taraan haddii alla idmo waxaan idinku boorinayaa ganacsiga iyo shaqada aad u haysaan bulshada inaad halkaa ka sii wadaan annagu dadka Maxamed Mooge ku nool ahaana waan idinku garab taaganahay waxaanu rajaynaynaa inaad tacabkaa ka midho dhalisaan waxaan ogahay xanaanada Maxamed Mooge mooye inaanay jirin horta goob kaloo caafimaad ama goob xanuunada dumarka iyo carruurta lagu daryeelo oo ka furan degmada Maxamed Mooge 24 saacadood in xarun cusub oo Ogaal Medical Center ah oo baahi weyn u qabtay Maxamed Mooge aan ogahay Maxamed Mooge Village ay laga furo aad iyo aad bay farxad aniga gaar ay igu tahay marka ku xigta waxaan ducada u raacinayaa meeshan la furayo ee Ogaal Medical Center ilaahay waxaan uga barayaa goobtii dadka iyo dalka u adeegta badbaadisa kana qayb qaadata healthcare delivery-ga dalkeena u baahan yahay ujeedka ugu weyn ee meel loo furaa waxa weeye waa adeegida dadka bukaanka ah ogowna Hargeysa markastoo ay sii ballaarataba xarumaha way ku yaraanayaan siiba degmada Maxamed Mooge oo aad ugu baahan xarun noocan oo kale ah markastoo uu distance-ga ama masaafada uu bukaanku ka helayo adeeg daryeel uu soo koobno ama soo gaabto waxaa fududaanaysa badbaadada bukaanka markaa dhakhaatiirta oo aan aqoontooda ogahay anugu ilaa iyo heerka jaamacadeed soo marayay kole imika waan isku dee romaayo ardaydii laakiin waxaan nahay asxaab baan nahay asxaabtaasoo aan ku kalsoonahay training ay qaateen iyo waxay soo barteen inay dadka ugu adeegayaan waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa meelaad idinkuna anfac ka heshaan dadkuna ay ku tanaadaan oo ay ku bogsadaan in ilaahay ka dhigo waa maalin khayr qabta duuba dhaqana soo dhaweey oo soo galaysa ilaahay idinka waxaan ka baryaa meeshaas meenta xana qaaday noqoto runtii farxad weyn bay noo tahay inaynu maanta goobjoog u ahaano xaruntan cusub ee laga furay degmadan Maxamed Mooge taasoo aan aaminsanahay inay wax ka tari doonto adeega caafimaad ee ka jira degmada Maxamed Mooge waxaynu ognahay ama research-ku sheegayaan mar kasta oo xarunta caafimaadka ay qofku u soo dhawaato in
dhaqanka adeeg doonashada ama behavioral health seeking behaviorka ama dhaqanka adeeg doonashada qofka in wax iska bedelaan taasna waxaan aaminsanahay in xaruntani ay wax weyn ka tari doonto oo adeega ama tayada adeega caafimaadka ama helitaanka caafimaadkana ay kordhin doonto waxa kale oo aad u aaminsanahay dhaqaatiirtaas inoo furtay adeeg xaruntan caafimaad oo aan ku kalsoonahay aqoontooda inay adeeg wanaagsan oo ay dadku ama bulshada deegaanka ku nool ay ka faa'iidaan ay bixin doonaan talada aan bixinayaan waxa weeyaan kolley way naloo sheegay waxa la yidhi xaruntan waxay furan tahay 24/7 ama 4 saacadoodba waxa weeyaan taladan bixinaya waxa weeyaan inta badan waxaa dhacda xarumaha caafimaadka waqtiyada odd hourska ama waqtiyada kala jabanka in ay xidhan yihiin ama adeega aan la bixin marka waxaad ku dadaali doontaan in mar kasta waqtiyada duhurkii subaxa salaada hore iyo waqtiyada habeenkii dambe in laga helo adeega caafimaadka mar kasta xaruntan ay bixiso waayo waxaynu ogsoonnahay adeega caafimaadku ma laha waqti xaalad emergency waqti kasta way iman kartaa marka waxayna dhaqaatiirteena ama shaqaaleena caafimaadkuna ay u diyaar garoobaan taas ay dadka uga faa'iideynayna adeegeena laakiin haddii waqtiyada sida normalka sida ganacsiyada kalena ay u furnaato xaruntu kama duwanaanayso dukaamada caadiga waxaan u baahannahay inaynu ugu talagalno adeega caafimaadka 24/7 ay furnaato oo dabeetana dadkuna ay ka faa'iideystaan waan u ducaynayaa nimanka dhaqaatiirta inoo furay xaruntan caafimaadka waxaan rajaynayaa in wax badan ay ka bedesho adeega caafimaad ee laga helayo degmada Maxamed Mooge ducaan ku bilaabayaa waa habeen jimca ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaynu ka baryaynaa goobtan caafimaad inuu ilaahay ka dhigo tii bulshada iyo degmadan Maxamed Mooge ee laga furay anfacda insha Allah ta'ala ragga dhalinyarta dhaqaatiirta furtayna iyaguna ay ku waxa weeyaan munaafacaadsadaan oo ay ka helaan iyaguna noloshooda intaa kadib sidaynu ognahay caafimaadku waa bani aadanimo ma aha ganacsi marka innagana waddankeenu sidii dhakhtarku uu halkanba ka sheegayey waxaynu nahay waddamada dunida caafimaadka laga yaabo inay ugu liitaan gaar ahaan weliba dawooyinka ayaa aada dhaliil badan looga sheegaa marka waxaan aan idinkula dhaqaaqaya inaa serviceka ugu fiican qofka bukaanka ee kuu yimi la siin kala asiisaan sidoo kalena dawooyinka ugu fiican dalka lagu iibiyo ayagana isticmaashaan oo qaadataan taasi waxay idinka saacidaysaa in dhakhtarka quality uu aada u fiicnaado bulshada ku xidhanna ay noqdaan dad badan idiin ajar ah oo idiin waxa weeyaan ajar ku helaysaan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sideedaba marka shaqada la qabanayo waxa uu inoo sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqina marka itqaanu lcamal shaqada in siday tahay looga run sheego siday tahay loo qabtaa waxa weeyaan waa wax nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ina faray ajarna lagu helayo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xarun caafimaad oo ku soo korodhay Hargeysa oo ku soo korodhay runtii degmada Maxamed Mooge gaar ahaan aad iyo aad bay ii farxad gelinaysaa mar kasta oo la sameeyo goob caafimaad runtii ay sameeyaanna dad takhasusaad runtii kala duwan leh oo runtii ay fadhiisanayaan dhaqaatiir waxaynu usii dhaqaaqaynaa oo aynu runtii tusaynaa bulshadeenna inaynu daweynay amba ay runtii bulshada runtii aynu waxtarnay marka runtii waxtarkaas soo kordhay ee bulsho ahaan inoo soo kordhay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxay ka dhigan tahay hooyo ilmo yar ama qof aabbo oo runtii jiranaa oo runtii aynu daweynay oo runtii caafimaaday
marka insha allahu runtii waxaan ugu ducaynayaa nimankaa dhalinyartaa ee da-da yar leh ee rag iyo dumarba leh ee dhakhaatiirtaa ee takhasuska kala duwan leh ee ku dhiiraday inay furaan clinigan runtii ogaal runtii aada iyo aad baan u dhiirigelinaynaa aada iyo aad baanan runtii ugu faraxsannahay runtii waanan idinku ducaynaynaa insha allahu ilaahay waxaanu ka baryaynaa in hadafka idinku aa ka leedihiin xirfadda iyo mihnadda runtii aa barateen inaad garataan inaad bulshadiina iyo dadkiina ugu adeegtaan runtii in ilaahay idinku guuleeyo yuusuf kayse cabdilaahi wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada ee somalilan oo gebagabadii halkaasi ka hadlay waxa uu bogaadiyey xaruntani cusub ee laga furay degmada maxamed mooge waxaanuu sheegay in ay kaalin weyn ka qaadan doonto baahitirka dhinaca caafimaadka ee degmadani ay tabayso runtii waa soo gaaray doctor ciise markuu xaruntan ogaal ka hadlayey adeegyada ay u qabanayso bulshada caasimadda hargeysa gaar ahaan degmada maxamed mooge rag badan oo halkan ka hadlayo reer maxamuud haybe ka soo jeedana waan yar saxayaaye degmada dhaha baan leeyahy waxay lahaayeen xaafadda maxamed mooge maaha xaafadda waa degmada maxamed mooge weeye waan u cudur daarayaa markaa degmadan runtii xarumo hore way ka furnaayeen laakiin marka loo eego baahida ka jirta aad iyo aad bay ugu baahan tahay degmadu xarun noocan oo kale ah iyo xarumo kaleba doctor ciise halkan wuxuu inooga sheegay inay adeegyo badan qabanayaan oo waayeel iyo carruurba ay adeegyo u qabanayaan caafimaad oo ay ugu muhiimsan tahay hooyada iyo dhallaanku oo iyadana aan muhiim u arkayo xanuunada dadka waaweyn la nool aada iyo aad baan u soo dhaweynayaa waanan ku faraxsanahay dhakhaatiirta dardaaran umaan siinaya waxaan leeyahay maadaama dad islaama aynu nahay waxaan idinkula dardaarmaya xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa inama alacmaalu biniyaati inaad ku dartaan oo markaad dadkeenna wax u qabanaysaan ajarka si ajar badan laydinku qoro inaad niyeysataan dar ilaahay ina hawshan u qabanaysaan taasaa barakadu ku jirtaa taasaa insha allahu bidmillaahi kariim aan rajaynaya inay meherado badan oo ogaal oo kale ay dhali doonto hadduu ilaahay idhaahdo taasaan idinkula dardaarmaya maxamed cabdi qalinlaa dardaaranya halka ka sheego dadkeennu waxaa laga yaabaa inay halkan idinku yimaadaan dadka inta jilicsan idinku yimaadaan oo aan awoodu lahayn inay xitaa iska bixiyaan dawada ama kaarka waxaan kula dardaarmaya inuu naxariisataan dadkeena inuu naxariisataan soo dhaweysaan neerasta dhakhaatiirtu kolley dee traininkaa way qabaaneen neerasta waxaa laga yaabaa dhakhtarku markuu ka baxo ama uu shaqadii u qabto bukaanka inuu kaga tago neerasta lafteedana inaad la dardaarantaan way hadal wanaagsan hadalka wanaagsan waa sadaqo in hadal wanaagsan waxaa laga yaabaa hooyadaas iyadoo khalkhalsanaya ilmaha idiin keento in si naxariisla loo soo dhaweeyo oo la dejiyo dardaarankaa dhakhaatiirta intaasaan kaga tegayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu ducaynayaa in ilaahay meherada barakeeyo meherado badan oo kalena ay dhasho dhammaan gobollada dalkana ay gaadhaan hadduu ilaahay idhaahdo sidaa laga wada sheekeeyey dee rag lagu wada kalsoon yahay aqoontooda iyo khibraddooda ayaa halkan laga sheegay si gaaraan waxaan usii hambalyeynayaa inanta dhakhtaradda ah oo aan filayay inay hooyada iyo dhallaanka ay ku takhasustay waxaa laga yaabaa wax badanoo hooyadu aanay u sheegan karin dhakhtarka inay iyadoo u sheegataa laga yaaba iyadana waan ku hambalyeynayaa hablahana waan ku dhiirigelinayaa inay bartaan fiilkaha inay bartaan marka anigu dee wasiirahaan caawayda kumaanameen oday xaafadaanoo waan ahay oo carruurtiisu degan tahay insha allahu bidmillaahi kariim xiriir baan la yeelan doonaa dhakhtarka hadduu ilaahay idhaahdo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay allaha barakeeyo meheradda allaha barakeeyo
ogaal medical center oo laga furay degmada maxamed mooge gaar ahaanna agagaarka kaalinta star isla markaana 24 saacadoodba furan waxaa la filayaa inay kaalin weyn ka qaadato baahitirka dhinaca caafimaadka ee degmadani. maxamed cabdi qalinle, Hargeysa.